dhammaan dadkii geystay oo dhan kulli maxkamad laba wada geyn oo waxay murnaayeen lama marin taa macnaheedu ma aha lagama jarin waxay geysteen qaar maxkamada ka jaray qaar taariikhda ka jartay qaar damiirkooda ka jaray qaar istoogtay baa jira iyo wixii Soomaalida aynu ahayn iyo waxyaalihii inayna keenin in la isku qasbo waxa kaloo la soo jeediyaa inta badan dadkii dhibta geystay iyo kuwii u ahaa aan geystay laba kala garanayo kuwii dhibta geystay xaq hore fadhiya arrintaas anigu waan ka hadlay dhowr jeer hore processka cadaaladdu inuu siyaasad u ekaado ma kolba qofkii meesha fadhiya inuu isagu xukumo qofka kale dhibaatada geystay ma nidaam uu maraa adduunka la yaqaana waa sababta komishinka loo aasaasay bal dadka aynu ku kalsoonahay aan isleenahay waxbay inoo garsoori karaan wax soo baari karaan aynu soo xullo ha soo baaraan hadda Mustafa Haybi iyo dhibaatada reer Haybi dhibaatada gaadhay qoyskiisa la naxariistay dad soo baara iyo nidaam cadaalad inay helaan xukuumadda kaliya kuma xidhna xukuumadda waxa loo arki karaa sida la sheegayo argoosi iyo bartilmaameed ee dadka dhiganayso waxa ka fiican marka inta guddi loo aasaaso guddigaas markuu soo baaro waqti bay qaadatay way dheeratay taban in qofkii maxkamad tagay maxkamadda uu tago kii wax cafiya uu cafiyo isaga u taala go'aanka waa inuu qofka inay ka timaado in xukuumaddu tilmaamto oo ay tiraahdo sida hal yeel waxa ka qurux badan in qofka ay ka timaado buuga hadda yarka caawa qoray waa huba bari caawa marka buugan soo baxo dagaal baa ku bilaabmaya أنا بوجه حال إيش شيء أو عشرة صدق أفرق شكور بالله شيء هذا بنسوق قبتين أنا ما تحمل الدنيا كله فوت إلا ساعات يود مسدد سبحي محمد وجهه هنا دمير كي وحي قالها قفك حنوصنا يا حنو كيس الدريمي سدوكته victim حنوك هيا فوشة قفك فوشة بعرك تو نك والله وش كين كرا لكن قفك فوشين بعرنا victim هو كل واساسه كله قفك يكون عادي يا بروسس كأمري على شيء سكرني كلام بناك جو ولا وش كين كراو وقياس كراو مركا حنوك قفك هيسو إن تلاقي قشة وزير مجسوفي عنتها هي يعني عكلها إن عكلنا إن لقنا السياسة دي وحيرك وبنين دولتي هذيك سنة سو سيدا هذا ولا قد يقدون هذا تذكي دمبلاش هذا قد يقدون إلا هو عايو اللي هذا العقد كله هذي دولتها إنه هلبا يجي وحل الجيش هذا يعني تعسيه أرمي كبح ما يصور كيو كقلوا عيسى يعقل ولا حساب وإن كتشوفته أي وخير بلانته سوى هو كهذا واحد ترين شخصي كصوب هاي يقيسك والله الضوء مستحيل ما أنت ويكوار دمية ودنبين إن وحي الأوران يا معنا لهين لكن وحق عدالة أنا فعنه وأن قرب يستقبل يانجو أنصني يانجو أنصدانو أريد التعديل اللي بعتضنا الدنيا تتعدي وما كان يشتري لما أنت تيجي يشتري كل حكوا اللي بيقول الجين وواحد مرناي العمري كان معناه معها لقى ما تشري واحد جيستين قار محكمة كشري قار تاريخ ذا كشرتي قار دمير كذا كشري وقار استوكتي بعد ما هو تاريخ زي يخوت هاي كله نكى هيروشيما يناغاساكي يابان كتبان كتوري هذا صح سنة تاريخهان ويستلبان التاريخ أنقاهي مركو أركي ودعوضي يبتيوكي مريك بدفاعي صدق كاجا لوي قلبو أركي هو يوينكي وبتكي تكي وحبي ويستلبان دميرها سنة كريم ماهي كي نوكلير بروجرام كسمي أوبنهايمر ميها ما يعيش كي سمي نوكلير كبا فكرة كسمي جرملها سنة وحلي يصير خليه يحيي دميركم قفوا عنان بحيث كده أو هذا كليجي أنسي حكرينه بتو بيستدرم لكن ذاتك مسكحة كحنوصن دميركم مشقي ذاتك مسكحة كحنوصن عبسي يلي وحده وبطه وبيع قدر يمان دميركم معنا أنتم قفك هالك فريق أيمك ضفر بنبا يصير واحد أحمران هدي قفت واحد قدبته وغريسته واحد سنة وخلدي هاي أقبل لقيها إلا أروت أنت أركي سنة فوق بتهريك يعني كيف لها محوح أبو سمي شل يسوي لها الليان هذا الحكومي ما هو وحكوا كله بحكوا هاي سطو بوليسكم هاي سطو أيضا بهبين كيسروري ودميرك حلقة هذا ده كان دميرك لهين يعني ابتدى أي جيستين هدي له وقفته أو لو بحكوا بده يبغى شرع له رجيم ويه يجود دمير كود
ما بلها مركو هرب هذا على بعض نوع سوي مقدان وعندو قرنيسا دعادي أغسطس 4 كان على المجال ده dadkan Soomaalida ahayn ee deegaanka iyo target laga dhigtay Soomaaliya dadkii dhibaatada geystay hadda maanta waxay iska gadayaan way aad ugu mashquulsan yihiin inay raali geliyaan dadkii aan Soomaalida ahayn ee dhibaatada u geystay aad ugu mashquulsan yihiin iyagoo moodaya dhufaysa kaga dhuman karaan dadkii Soomaalida ahayn dhibaateeyeen ee maaradooda ahay walaaladooda ahay og yihiin inta qoyska burburtay inta la dilay dawlad kamala marka cafisku wuxuu iman karaa marka qofku uu garowsado wuxuu geeyay ururka oo la fadaxdoodu maanta waxaan aaminsanyahay kala burburkooda ay kala maaragtay ururkii khatar u galay kala qaybsanaanta waxa asaas u haban aaminsanyahay qaabkii loo wajahay dadkii tacdiir ku dhacay kolkii la yiri dadkii u halgamay ururkoodii meedkoodii wadooyinka yaala ku istaagay way siman yihiin kolkii la yiri طبعا de in qaardidayaan oo masan oranayaan waa iska caday haddana fursad u furan dadkii saas sameeyay maantana inay ku sii dhiiradaan oo ku sii cadaadaan khaladkii waxaa ka fiican inay garowsadaan oo yiraahdaan way shacabkan la dareen lahay wixii in la qabiileeyo hadda dadka buugta qoray hadda halkan qoray intaan ogahay ka hadlay tacadiga dhibaatada dhacday waa Bureyda Cabdiqaadir Bureyda iyo Baalduuya dadka dhibaateynaya ee dhibaatada u geysanayna waa dad system dhan oo deegaanka ka soo jeedo oo kulli tobanka gobol dad ka soo jeedo yaa dhibaateynaya laba ogala in xaqada laga hadlo waxa la rabaa si gaariye sidoo yiri macnaha in lagu dhax dhunto magac aan jirin iyo in lagu dhax dhunto taa inaan ogolaano ma marka waa ognahay in dad fara badan hebel baa loo jeedaa kana loo jeedaa cidna loo jeedo waxa loo jeedaa ninkii dambiilaha hadaa dambiila tahay dambiila waa lagu jeedaa hadaa dambiila ahayn laguma jeedo arintaasi abaabul adag oo dagaal baa ku socda inaan arinta lacag baa ku socota media ku socota dagaal baa ku socda laakiin maalin ka dambaysa way soo gaaban sheekadaas walbahaar fara badan oo dadkii shalay dhibaateeyay iyo kan iyo waxan eegada dadka lagu cabsiyaa hadlin bariday maadaama laga yaabo ma imanayaan waxaas walbahaar ma laha laakiin waa qayb ka mid iyaguna way ogyihiin inay imanayeen oo maanta waaqac iyo duruuf waxa ogolaanaya iyo dad ogolaanaya meesha inuu jirin way ogyihiin laakiin waa qayb ka mid ah terrorism dadka in la terrorize gareeyo oo dadku aan hadlin tamaam yani bari ka maalin armad ku soo gaadhay maadaama la og yahay xanuunka troomada dhibti gaaray dad in wali la argagaxsan taas qaybka waxa markaa haboon taariikhdeena inaan qorano haddii ay jirto cid ku murmaysa taariikhiina soo maray ama xilligii boqortooyada ama xilligii dawladda muxuu ahaa bisxalabana dargiga ahayd ama cid ku murmaysa oo la tacadiin naguma dhicin dadkeena hadday jirto waa in lala doodo laakiin doodaha kharqiiska ah ee ay horboodayeen nasiib darro qaar ka mida dadkii halganka sheeganayay waxay ahaayeen yaa ina dilay inaga laba qobiyo qobiyo ay noo roon maxaa naga gala wax noo roon waxaa laga hadlayaa waqti time baa laga hadlaya waqtigaana waan dulmanayn boqolaal qof baa la dilayay kumanaan qoys baa la dilayay kanoonigii wixii ka dambeeyey cayshaca imisa waqtigana waa layna dhibaateeyey marka adu maxaad ugu xiqarinaysaa waqtigan ayaan maxaad waqtigan waan ka hadlaynaa waqtigan oo tan waa tii u dambeysay kuwa kale laguma muransanaa tan ka murmaysaa kuwa kale kuma muransanin waraan socono haddaan ku leeyahay dowladdii dhanbu dadka meel leeyihiin tixalaysa leeyahay haddaan ku idhaha marka waxaad xaq u leedahay inaad tiraahdo aan muranno oon doodno midkeen noo darno marka ulakac naareeshino la samaynayo oo dulmigii la geystay dhibkii la geystay ee TPLF iyo intii la socotay ay geysteen lagu baabinayo ayaa jira nasiib darro qaar ka midi saan sheegay dadkii ahayd ee ka hortagaan kama hortagin taas waxay keenaysaa marka in la masoobo oo la iskala garan waayo arrinta ku saabsan tacadiga annagu runtii dad fara badan intiina loo keeno in aragno waa run gabadha dalada banayaasha sidii loo baahnaa inaan loo qaabin ba laga yaabaa laakiin dee xafiiska tacadiyada waa la sameeyey dadka tacadiga ku dhaceen qoysaska wixiina soo gaara wixii dhakhtar u baahan wixii nolosha laga taageero u baahan intii aan karaynayna soo gaaraysa waxaa laga qabtaa runtii dee lama shaaciyo oo ilaacadaha iyo in la keeno qofkii bayna xitaa u fiicnayn laakiin ma oran karo dee dadkii waa la wada gaaray si ballaaran buu tacadigu u dhacay tacaddiguna intaa uun keliya maahe inta kale wuu gaaray halkan haddii gacanta taaglayaan noocu doon ha noqday tacaddi inta kugu dhacday waxaa laga yaabaa gacan dadka xilliya kala duwan kolka
هذا الديار بلوي أرمها إلا صحو كل مركز دماغان بارتان نضو إلا صوب النجاة قرشوي هاي ولا كانوا عد لقاها يبيسني أو محكمة لكيدي كريم أو لدعوي كريم مجرد تا إنه أب هذانا دتكين أنا وحكم الهان هذي دتوس عفيان إن فارفارنو أو تذكرنا هذا يدنا مثال ماشي ويتذكي وحال يا تذكي مسؤولين تأقار باكوتشرا الصبحان ولا إذن قفت مركز الإذايو وحال جاي وحفر بون باتشري وودن كتاعنا إذن تشرت لفتي إلا حقيقي وبهن وعدالة الدرجة شان لقى عمل ما تين على الله ترفيقي النقطة ما هي الباقي تعدي هي الباقي يسمي من نقص وإلا بارو بدو حلو سمي وإلا بارو هذيك لا تدخل كي حكت ممكن ريحان هي فرط ترفيقي هي الباقي هي ورد قارة قرنيا ويشلان وذاك المسؤولين هو هاي وحية لكن تدخل كلا لفت يقول قاعد بس عفية باكرة وهو صعودة يا شلان وش قية ترانزيشنال جستيس كم كده واتلو بالعرض التعدد وسيلة وكله وحوي وحي إسعافية يوم يودد كم يودد كان وإنجي منتجه كل شيء أنا متضايق عن عفية باكرة وانقرني الله هم وحنا نحمر أنا لقيها وين هذا أركت هناك لقى شكل تدخل أو تدخل عفية باكرة لمركا هل يسوى هاي استقرت هل يسوى هاي استماه وحنا كهذا لنا تدخل حنون كوكاري تدخل حنون كوكاري هل كان بوق قف القرية وكلا حنون صار حق حولي هاي إنه تعود فرا إنه محكمة تتحقق إنه إذا هذا هبل يبغى يقسم محكمة على أي كان هو بدل بيتلو سكوا بكسليو ظروف فرا بدل يروح يدعي أوجد هذا أساس يدي بتي لكن أنا أسكت إلى هذا كده إنه ده المسلمان هاي دقن بان له الدين بان له هاي وحفر بدل أو كم من الدين تهدي كأنه كصعد كأيو هو بدلنا وهو ضدك أي دعوة دين الجيان هو ما أنت كسر هي أو كهو سيان ضدك ويزود سامحات وحيمان يساقف كمركا فرصة هذا هيسط هذا كسر يسمى بس سامح كرتا هذا كهو يسمى سامح كرتي سامح كرتا قف وسط هذا يمد قف الوسط هذا يمد سامح كرتي مركا ضد فربنا سايدي بعد لو الهبل أنا ما المساس بيقول سمي أنا لكن ما اسكت أيوه إلى ما كنت هاسو كله هدوء بكسدي الحمد لله رب العالمين أنا فرفارد إذا هذا ما بكسني أنا كاسة هي الباقي يسمي وتاجني هنا إلا تاجره حق الشرع لقى تاجره حق النرش لقى تاجره يبقى نجا صارا وان سوين هذه الليلة مركا هذه البلد بوادني يا تذكر كل شيء يدو إنه هي بوليسكا لعبورة يبوك تاجن يسيد العقل لو تقالم يوين تاريخ دي شلة عادي يعبت شلة لو قريه هذه السنة كسرتنا وادو كل يدي بناياشها أي دمبليال نقنا يامب ليس كسرته ولا جهل لوايو ولا يروايو يركض يرضى حنون كيسين لو ذاقي وكما سيهاي يسوي إن شاء الله إذا كل حاجة يهات قروان سرقني يقولك أنت هو تاجردي لو بهنا أنا أوريني واتسيني لو بهنا هم بهنا مركا إن أنت ضدك الضمير كله وحلها دعي خلط كتيرة ولو كلا بحنا وضدك تمايا وضدك بالمي جستي يكوي لتمي يكوا لبعض من أنا هين مركا كوي أرت تمايا شها هذلا هو أمسن أصور عن وحكي كفر يسا كوي تمايا شها أرت هذلا يحدث تجري هالشيئان وبجيران ضدك بالمي جستي إن حفصان ويحشودان ومتى كحشودان هلا جالسين هذا هكذا جالسين of course تاريخ التوكو حلاقة وحوي إن حلقة ما برمي شيء واحد عاد بيجي وصلكم دقيق وصلنا قلنا كليه يقف كي جيستي وصلنا قلنا أنا قاعد سوين قف كي بقى لك هذا القاضي بهرين سواق بقرع هل في سنة يالكم وايو هدي الشل واحد عاي وهو إيه دبا البريك جارنتي ما هي ستبريت ولا كلمات عادي هو يوجد هذا تطبق اللي وحى بانيشمنت تيجي لو سمايا إن وحي دميرك قبلنا دميرك قبته وحي شرع وقبلنا شرع وقبته ويجتهد هذا شرعنا قبلنا دميرنا ويشرين وضدك واي وحي عادي واركان بريك ماله إن تطنع سمايا أي مادة أشخاص تي سمايا إيمانيا لكن تذكروا سمايا أي إيمانيا ما تعرفها نوع عسنا إن شاء الله ديال اللي ذلك كنا كقادنا بوقتنا يركب معها ونكتاجرنا ونكعاوننا أنتي خلدنتي جهة خلدن قاضي حيالله ما رتحل لي لو بهنا إن سيد الصحة لوجه هذا
sabab jira oo duruufo siyaasadeed geli siyaasadii dhiiggii shacabka iyo masaakiintii dhimanaysay siyaasiyiin ha ka soo noqdaan toobadkeedaan fursad baa furan hadda ha ka soo noqdaan dhibaatadii shalay inay nagu dhicinna shacab ahaan commitment aan qaadanno kulligeenba xilka iyo siyaasadda iyo waxan waa sahal qofka xilka haya maanta waa hebel berri waa hebel saadam waa hebel adduunku saan buu isu bedelaa maalin walba dhibaato ma laha laakiin inaan deegaankeena nabad ku haysano inaan xorriyad ku haysano inaan nafteena aan u cabsan waxa ugu hooseeya ee qofka bini'aadamka heli karaa hadduu gaajo iyo abaartii iyo baahidii una weli ka xoroobin dee cabsi inuu ka xoroobo nabaddu iskaga sexdo aroorta kusoo tooso waxay ku xidhan tahay halganka inagoo aan muujino insha allah haddii la yidhaha markuu dhammaadaan commissionkuna processadan dawliga ah in dadkii hadda kor waan ka hadalnay wixii dalladda victimska ku saabsan taageeradii la siin lahaa waan qaadanaynaa hadday jiraan dad nidaamka ku jira oo dembiye geystay laga hor istaagi maayo dadka dacwadda in lagu soo ogo waxay ku xidhan tahay laakiin siyaasiyan annagu dalka maanaan joogin sida keliya yeeli karnaa waxay ahayd inaan guddi aasaasno guddigaasi inuu baaritaan soo sameeyo baaritaankaasi waa hordhac sharciga lagu hortegayo dadku la eedeynayaan xaq bay u leeyahay isdifaacan waana jiri karaan dee dadka la eedeeyey qaar ka midii eedda lagu sheegay inayna jirin kontanka kun ee keys dad fara badan oo la yidhi hebel waxaas igu geystay waa laga yaabaa inuu yidhahdo aniga ma ahayn ama duruuf noocaas ay u kulagtay inuu yidhahdo waa suurtag marka waxay u baahan nahay inaan arrintaa fahamsanaano aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan intii xafladdan ka soo qayb gashay sidan quruxda badan inuu nagu qabsanto sababta u noqotay iyo intii soo agaasintayba ilaahay khayrka hayna waafajiyo waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu